balila daawo muuqaalkani adiga yaabi doone nimankaaniintii mama boyska mama boys masaqaaniin xaskaagii hooyada hooyade ma gursad hooyada ida gurso waa duni la yaab ah oo caasi waalideennimada la babuuninaya waxa u malaynayaa in aadan fahmin mama boys waxay u garanayaan dadkan dhaqamada reer galbeedka dabagala ee aadka u xiiseeya qofka waalidkii ama hooyadii baariga u ah ee u naxariista ee ixtiraama ee ka dambeeya ee waxa weeye hadalka iyo talada iyo tusaalaha waalidkii dhageysta ee u naxariista ayay u garanayaan mama boys gabadhan yartaa waxay leedahay haddii hooyada iyo xaaskaaga marka lagu yiraahdo aadba hooyada dooranayso iyada guurso halka ayay marayaan dad badan oo rag iyo dumarba leh ayaa dhaqanka nooca ah ee liita aad u babuuniya ee taabageliya ee ka dhiga wax ma garanaysaa ee cajaa'ib ah subxaanallah allah iyo rasuulkiisuba waxa ay waajib yeeleen oo waajib ah in la adeeco loo baarinimo sameeyo loo naxariista waalidka suuratul israa allah wuxuu ku waajib yeelay in waalidka la adeeca وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الله سبحانه وتعالى وحو واجب يلي إلا أدعوه الله نحريسته هذا الحنة aan lagu oran loona duceeyo waalidka Allah subhanahu wa ta'ala ayaa waajib yeelay in la adeeco loo baarinimo sameeyo loona duceeyo waalidka suuratul luqmaan wa wasayna al-insana biwaalidayhi aayada 14 ayuu sidoo kale Allah kaga hadlay subhana salawatullahi wa salaamu alayhi markii la weydiiyay dadka yaa iigu xaqnimo badan wuxuu yiri hooyada kadib wuxuu yiri ninkii yaa xiga kadib wuxuu yiri hooyada nabi allah yaa xiga hooyada markii afaraad buu yiri aabaha mar kale subhana salawatullahi wa salaamu alayhi nin jihaad u baxaya ayuu weydiiyay hooyada ma nooshahay ninkii wuxuu yiri ha rasuul allah way nooshahay wuxuu yiri u laabo oo u baarinimo samee ayada lagu heeda dhaxdooda ayay jannada ku jirtaa markana nabiga kaleey salaatu wasalaam wakiilaha hoog allaha ku rida allaha khasaariyo marka ayay yiraahdeen asxaabtii ayaa weeye rasuulka allah yaa weeye cidda wuxuu yiri nabiga waa qofkii hooyadii iyo aabihii labadooduba ama midkood agtooda waxa weeye uu ku waayeelay ama ku duqoobay oo waxa weeye aanan waxa weeye wanaagu u sameeyay aanay janno ku galin hadda xaalka waxa uu marayaa qofka waalidka u baarinimo sameeya ee waalidkii waxa weeye u jilicsan ee waalidkii u nugul ee talada iyo tusaalaha waalidka qaata ee hadalkooda dhageysta ee u naxariistay in lagu tilmaamo qof aanan jirin qof aanan go'aan lahayn qof aanan madax bannaanayn in lagu tilmaamo ayay haatan maraysaa haddaba dhalinyarada noocaan ah aaminsan fikirka noocaan ah waxay u garanayaan mama boys maxaa weey mama boys waxay u garanayaan qofka waalidkii adeeca qofka waalidkii u baarinimo sameeya qofka waalidkii u naxariista qofka waalidkii garab iyo gaashaan iyo gargaar u ah ayay u garanayaan mama boys waxayna kula yihiin waa qof waxayna aaminsan yihiin inuu yahay qof aanan lahayn go'aan qof aanan madax bannaanayn qof la haysta ah oo waxa weeye aanan lahayn wax fikir ah ama wax go'aan ah ama wax tala ah iyo wax tusaale midna aanan lahayn ayay u garanayaan duniduna maanta halka ayay maraysaa haddii marka dadka noocaan ahi haddii caruurteena ay arkaan inaguna aanan ka wacyi gelin oo aanan sheegin xaqa iyo wixii jira iyo sida ay wax yihiin caruurtii ayay duufsanayaan
waxaa imaanaysana dad badan oo noocaan ahi in ay waxa weeye bulshada kasoo dhexbaxaan ayagoo ololeynaya caasi waalideynimada ayagoo u ololeynaya caasi waalideynimada qofka caasi waalideynka ahna qofka caasi waalideynka ah ee waalidkii waxa weeye caasiga ku ana wax laga aqbalayo salaad iyo soon midna lagama aqbalayo xilligii suubanaha salawaatullaahi wasalaamu calayh wiil yar oo xanuunsanaya ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu wacay rasuulkii ayaa u yimi markuu yidhi yaa qulaam qul laa ilaaha ila allah wiilkii wuxuu yidhi rasuul allow ma oran karayo ma dhihi karayo way igu adag tahay dadkii buu weydiiyey war wiilkani siduu ahaa waxaa la yidhi isaga ayaa noogu salaad badnaa isaga ayaa noogu cibaado badnaa isaga ayaa noogu dhaaco badnaa wuxuu ahaa qof ahlulcibaado ah suubanaha salawaatullaahi wasalaamu calayh markiiba wuu gartay oo wuxuu yidhi waalidkii ma nool yahay waxaa la yidhi hooyadii baa nool hooyadii baa loo wacay igu waxuu yidhi waxaa la yidhi rasuulka allah kuu wacaya imow way u timid markaabuu rasuulka yidhi wiilkan adiga miyaa dhalay waxay tiri rasuul allow sidaa ayaa lalahaa micnaha aad bay ugu xun tahay wiilka macnaha xiriirkooda ma wacna sidaa ayaa lalahaa nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi iska cafi waxay tiri rasuul allow kan anigu ma cafin karaya markaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka warna haddii aan dab inta ku shido oo waxa weeye aan ku rido dabka oo aan guba waxay tiri rasuul allow way dhibaysaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaba dabkaane midda aakhiraha kaga darane iska cafi wiilkaaga weeye way cafisay rasuulka alle iyo ummadii oo waxa weeye marqaati ka ayay cafisay kadibna wiilkii ayuu suubanaha ku yidhi qul laa ilaaha ila allah wiilkii wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah kadib waa uu dhintay marka ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam allah u mahad celiyey addoonkiisa ka badbaadiyey cadaabta daacadii iyo salaadii iyo soonkii iyo wixii aad samaynaysay haddii waalidka aad tahay mid ku taagan oo caasi ku ah waxba kuu qabani maayaan dadaalkaagina wax tari maayo waa haddii aad aakhiro rajo ka leedahay waayo dunidan aan joogna waa daarul camal daarul barzaq ayaa kaa horeysa oo qabrigii ah oo iyada qudheeda oo u baahan shaqo waxaa kaa dambayso qiyaamo iyo xisaab daarul khuluud ayaa kasii dambaysa waxa oo dhan waxaad u baahan tahay maanta inaad shaqaysato taana waxa qayb weyn oo qayb libaax ah ka qaadanaya inaad waalidka adeecdo inaad allah adeecdo rasuulkiisana adeecdo waalidkaana aad adeecdo guryahan quruxda badan waxaa magaalada Nairobi ka dhisaya shirkadda dhismaha ee Marwa Homes shirkaddu waxay ku haysaa fursad dahabi ah oo aad ku noqon karta mulkiilaha guri casri ah guryaha waxay ka kooban yihiin 4 qol fadhi iyo qolkii shaqaalaha 3 qol fadhi iyo qolkii shaqaalaha iyo waliba 2 qol fadhi guryahani waxay leeyihiin dhammaan adeegga asaasiga sida bakinka baabuurta jiimka masaajidka madarasada caruurta isbitaalada iyo dukaamada adeegga ayaanu meesha ka marnayn paymentiga ama lacag bixinta paymentigu waa mid aad ku farxad gelin doona oo hadba sida awoodaada ayaad lacagta u bixinaysaa shirkaddu waxay guryo ka dhisaysaa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii sida California iyo Juja South Sea Kilimani iyo xaafadaha kale ay Soomaalidu degto ayay shirkaddu dhismo ka wadaa waxa si wacan ku soo dhaweyn doona maamul iyo shaqaale u helan soo dhaweynta macaamiisha ku darso waxay kugula hadlayaan afkaaga hooyo ee Soomaaliga wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda